arrimaha horumarka haddaynu usoo noqono dee intiina badan warbaahintu waa laga yaabaa inaad xoogaal u tihiin deegaankeena 7 sano ka hor qaab nooceeyo ah tusaale yar kooban waxaan u qaadan karnaa maamulka magaalada Jigjiga oo caasimadii deegaankeena maamulka magaalada Jigjiga boqolkiiba tiro ka yar 12% ayaa biyo nadiif heli jiray isbedelka ka hor iyadoo ay halka marayso waxyaalaha la sameyn jiray dawladda markii isbedelku dhacay halista ku keenay waxa kamid ahaa xogaha ama warbixinaha aas-aasiga ee bulshada loo qabtay ee la gudbinayo oo inta badan aynu qaab heesaa lagu cabay jiray boqolkiiba 100 korna waan u soconaa caasimadda deegaankeenu xilligii la yimiday ama guud ahaan deegaankeena waxa loogu talagalay in cid ka dambaysa intay qaadatay baseline-kaasi lagu cabiri karo in la saxo halkii taaganta baahida bulshadu maanta way adkaatay in la ogaado caafimaadkeenu halku taagan yahay biyaheenu halku taagan yahay waxbarashadeenu halku taagan tahay jidadkeenu halku taagan yahay way adkeed in la ogaado arrinta waxa sabab u ahaa warbixinaha been abuurka inta faraha badan warbixino fara badan oo been abuur oo la sameeyay oo lagu qurxinayay walibana suugaan lalaha boqolkiiba 100 sarana waan u soconaaba jiray iyadoo aynu ognahay reality-ga aynu wajahaynaa ay nooca ahayd iyadoo ay saa tahay waxa laga yaabaa inaan xilligaasi dad xukuumadda jirtay aan cidba ayna dhaliili kareen oo oran kareen waxa saa uma jiraan maanta xukuumadda anaku deegaankeena talisaa waxay ogashahay dhaliilaha jira iyo baahiyaha jira shacabka in la ogaado wixii jirana laga jawaabo wixii aan jirina la yiraahdo ma jiraan wixii jirana la qorsheeyo goorma laga jawaabaya su'aalaha noocaas baahiyaha bulshadeenu baahiyo kooban ma waa baahiyo aad u fara badan waxay u baahan yihiin miisaaniyad iyo hanti bay u baahan yihiin qayb hadda wax laga qaban karaa qaybna mustaqbalka wax laga qaban karaa waa la qorsheyn golayaasha baarlamankeena kabinetka deegaanka iyo hay'adaha kala duwan ee deegaankuba qorshayaal hufan oo la abaabulay oo qorshaha hoosta ka yimid oo baahida shacabka ka turjumaya ayaa inta badan la qorsheeyo meesha ku jira qorshayaashaasi inta badan awal hore markaan qorshe ka hadlayno imka qorsho laga dooday oo down to top inta badan yimaada degmooyinka maamul magaalooyinka iyaga soo qorshaysta dawladdu waxay ku hogtaa strategic pillars kala rabo in deegaanka lagu hogaamiyo ayaa la oranayaa sanadkan ahmiyadda siyaasadeed ee leenahay waa maxay 1 2 3 4 baa la oran waxa la siinaya degmooyinka iyo muwaaqarada dawladda inoo jira iyadoo strategic pillars ka isticmaalaya ayay qorshe soo sameysanayaan qorshahaasi qorshe horumarineed oo bulshada lagaga baahi noqonayo waraas hadda ka hor qorshayaasha ayna jirin dhamaantood ba halkan lagu sameyn jiray marba dhinac loo kacay arrintaasna ay keentay in baahiyihii shacabku xilligii loogu talagalay aan laga jawaabo marka taa markaan ka gudubno horumarka aynu ku sii socono coverage-ka biyuhu deegaankeena hadda meel fiican buu taagan yahay waxbarashada dadaalo badan baa laga sameeyay iskuulo badan baa la dhisay manhajkii ardayda ayaa gaaridiisa la helay kursiga ardayga uu ku fadhiisanaya ayaa talateeyay oo wax badan laga qabtay tayada waxbarashada inkastoo guud ahaan dalka ay jirto waxbarashadu ay culays badan ay jirto ayna sababuna u tahay caqabadihii dawladdii hore ay sameysay ee ahaa in qish ardayda inta badan ay ku baasi karaan performance-gina meesha ka baxo tiiba la tacaalaya waxbarashaduna waa wax u baahan inta badan waqti badan in lagu saxo oo jiilal fara badan u baahan waxbarashada wax badan baa laga qabtay biyaha wax badan baa laga qabtay jidadka wax badan baa laga qabtay gaar ahaan waxa muhiimadda la saaray resource-gii deegaanka koobnaa ee yaraa in looga faa'iideysto shacabkeenu halkuu ku urursan yahay uu joogaa maanta haddii aad 7 sano kamaradaha hadda annaka hor yaala aad qaadaan oo gobolada iyo degmooyinka tagtaan waxaad ogaanaysaan caasimadeena Jigjiga maxaa waanta wax laga qabtay laamida laga qabtay intee leegta wadooyinku intee yihiin jidadka la qabtay biyaha la qabtay waxbarashada la qabtay marka xoogga waxa la saaray shacabku meeshay ku urursan yihiin ee baahidoodu taalo in resource-ga dawladda la geliyo oo lagaga jawaabo taasina waa waxa weeyaan waxyaalahan isleenahay isbedelka badan ee deegaanka intii ka dambeysay isbedelka waa la sameeyay wax badan deegaankeena ma jirin baan oran karnaa waxaan la qabtay 7 sano ugu dambeysay miyi shacabkeenu baahiyo dhameystiran ma la qabtay meel lama qaban deegaankan wuxuu ahaa deegaan 30 sano ugu dambeysay aan wax badan oo laga qabtay ay ni jirin hadii wax laga qabtayna ay yar yihiin hantida aynu hayno iyo resource-ga aynu hayno oo ina dabraya awgeed baynu maalinba waxaanu qabanaynaa qorsheysanayna aynu qabanaynaa laakiin waxa la hayaa qorshayaashii strategic-ka deegaanka lagu transform gareyn lahaa qorshihii 10 sano qorshihii 3 sano
oo la rabo baahiyaha aasaasiga ee deegaankeena in wax badan lagaga taro. Horumarka waxa lagu fuliyaa oo wax lagaga qabtaa waxa weeye dhaqaale, sidaan hadda sheegnay. Dhaqaalaha waxa ugu muhiimsan dawlad ama dal meel jira haddii uuna dhaqaalo lahayn, baahiyaha shacabkeenu ee faraha badan leh ee u baahan yihiin sidii loo baahnaa loogama jawaabi karo. deegaankeena muddadii isbedelka ahayd waxa aad u xoogeystay oo iyaduna muhiimadda la saaray isla xisaabtanka hay'adaha dawliga ah ee kala madax bannaan. hay'adda sharci dejinta, hay'adda garsoorka iyo hay'adda fulinta. sidii dastuurka deegaankeenu dhigayay, bayaanadeennuna dhigayeen maanta waxaad aragtaa inta faraha badan leh guddiyada joogtada ee baarlamaanka oo qiimeynaya, eegaya, su-aalana ka weydiinaya mas-uuliyiinta deegaanka ee hay'adda fulinta waxqabadkoodii. shacabka intay u dhaadhacaan bay soo ogaanayaan, shacabkay soo wareysanayaan, baylahaha jira ee la gaabiyey iyagoo wata ayay la imanayaan, la is ogaanayaan. way adkeyd hadda ka hor in la ogaado oo shacabkuba dareenkooda cid ay u dhiibtaan ayna helin. maanta waxaan odhan karnaa hay'adda sharci dejinta ay inoo jirta ama baarlamankeenu waa baarlaman ka turjumaya baarlamaannimadiisii saxda ahayd. waa baarlaman afka shacabka ama doorashadii shacabka soo doortay u wakiil ah, baahiyihii jirina ciddii ay khuseysay inta badan soo bandhigaya. taa marka laga soo tago waxaa kaloo jirta in warbixinaha 6 bilood iyo sanadka marka la qiimeynayo, warbixinta xukuumaddu si detail oo faahfaahsan marka la jeedinayo, su-aalaha ugu badan ee la weydiiyo baarlamanka weydiinayo. arrintaas waxay kor u qaaday isla xisaabtankii kor u qaaday. waxaa kaloo jira iyaduna la sugay madax bannaanida hay'adaha hanti dhowrka oo hay'adda hanti dhowrka iyaduna xaq u leh in deegaanka hantidii baarlamankeenu ansixiyey, qaabkii loogu talagalay, qaabkii loo isticmaalay ay hanti dhowrto, shuruuciheenii, nidaamkeenii iyadoo la raacayo financial management manualkeeni iyo hawlaheenii sidii loo baahnaa ma loo qabta iyadoo la jirta. waxaa jirta hay'ad kale oo iyaduna la yidhaahdo anti corruption commissionka oo halisaha khataraha musuqmaasuqu keenaysa. marka waxaa laga yaabaa inta badan beryahan dambe inaad midiyaga ku aragteen deegaanka eedo aan sal iyo raatoona lahayn, cadeymano loo hayn, la rabo in boog nabara lagaga dhigo deegaanka la yidhaahdo waxaa jira musuq, waxaa jira isdabamarin baa jirta. dawladdu waxay diyaar u tahay hay'adahaasina noogu jiraan in laiskula xisaabtamo haddii ay jiraan waxaas meeshay ka jiraan, caddaynteydii oo dhammaystiran meeshay ka jiraan iyo cidday ku jiraan in la keeno lala xisaabtamo. dawladdu way ogashaa. laakiin waxaa su-aal loo isweydiin la iyaduna ninka maanta deegaanka qaabka iyo hay'adaha madax bannaanida loo sugay jooga ee arkaya shalay halkii lasoo maray waxaa dhacaysa in madaxweynihii hore deegaanku gawaari combayn oo lacag lagu qaado inta la tago deegaanka lacag laga qeymin jiray. waayo sharciga iyo awoodda siinaysa in madaxweyne deegaan intuu lacag kambayna ku qaato uu dadka uga qeybiyo. shalay musuq ma jirin miyaa ma odhan karna, no shalay bay taasi ahayd. maanta laakiin waxaa laga yaabaa hay'adihii dawladdu isla xisaabtankii jiray 100% ma lihin qaabka wax loo qabto dee perfect ma noqon karaan, dhaliilaha jiri kara. dhaliilahaasi laakiin waxa u diyaarsan hanaanka dhaliilaha lagu sixilaabaya la dawladdu oo diyaar la tahay. marka iyadoo shalay lagu hayo miisaaniyadda qaabkii loo maamuli jiray shalay waan garanayna si fiican baad ogtiin. degmooyinka haddaad wareysataan miisaaniyadda marka la qorsheynay qaabkii lagu maamuli jiray clear way caddahay. xafiisyada dawladda, xafiiska anu aan mas-uulka ka ahay dee shalay markii la joogay cidda mas-uulka ka ahayd ma ahayn ninka fadhiye direction shakhsi ku socdaan soconaya deegaankeena ka soconaya. maanta ma jiro nin walo hogaamiye ah oo xafiis hogaaminaya mandatekiisa iyo qorshayaashiisa iyo shaqada loogu talagalay isaga qabanaya. waa lagula xisaabtamaya, wuxuu biyana waa lagula xisaabtamaya, wuxuu horumariyo hagaajiyana waa wax jiro oo loo arkayo wey. laakiin shalay iyadoo historyga noocaas deegaankeena kasoo dhacayeen in deegaankeena dhanba taladiisu hadday doonto ay ahayd inay cid gooniya ku urursaneyd, resourcega qaabka loo qaybiya oo ahaa resource cid gooniya ay taladii go-aankeeda hayso, dee lacagahaan sheegayna la qaybinayay, shacabka loo qaybinayay, la siinayay, sharcigii dawladduna ma ogoleen cid loo siinayna ma jiro. lacagtaasi lacagtii deegaankeenu bahayd ee loogu talagalay ummadda in horumarta wax lagaga qabto, in caafimaadka wax lagaga qabto, in waxbarashada wax lagaga qabto, in nabadgelyada wax lagaga qabto. resourciga ahaabaa interest shakhsi ah oo siyaasadaysan. marka waxaa laga yaabaa marka maanta wax la barbar dhigo tii shalay inta badan dadkeenu waxaad moodaa inaan daah iska saarayno. xaaladda rasmiga ee deegaankeenu ku jira shalay noocaasi ahayd, maantana halkaasaa jirta. maanta 100% halkaynu u soconaa ma saxba maya dhaliilaha jiri kara. dhaliilaha jiri kara hay'adda dawliga ama saddexda hay'adood dawladda jira waa ogol yihiin
in la dhaliili karo wax laga sheegi karo wixii la sheegay lala xisaabtami karo way ogolyihiin wixii xumaaday in la saxo way ogolyihiin deegaanka horumarka jira ee kooban muddada kooban baa la qabtay 7 sano horumarka la qabtay waxa laga yaabaa 30 sano ama 20 sano ugu dambeysay horumarka deegaanka laga fuliyay hadii sector loo dul maro inay gaareen